السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلة وناسم دولة شدا قيمها يقدرين تيشرفت ونجمدا كسر نوادا قرنك يقدم به يسيدو كل الدور شدا كسر ضدك كيا يسيدو كلها إذا الله شيء قيمة كم إذا جمها قد بحنتها أي هالكاسي كذا تيجي عنكو هذا الله hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Kenya Raila Odinga ayaa ugu horeeyay tartanka doorashada madaxtinimada dalkaasi iyadoo ay jiraan in natiijada rasmiga xilligan aan lagu dhawaaqin waxaana jirta in isaguna halkaasi uu ku jiro kaalinta labaad William Ruto oo isagana raba inuu noqdo madaxweynaha dalkaasi Kenya loolanka ugu xoogan ayaa ka haysta dhanka musharaxnimada iyaguna loolanadii ugu xoogan dhaxmaraya William Ruto iyo sidoo kale Raila Odinga dalka Kenya ayaa inta badan waxa xilligan ka socda doorasho iyadoo ay wali aan si rasmi ah loogu dhawaaqin natiijada iyo sidoo kale inta noqonaysa madaxweynaha wadankaasi Kenya loolanka ugu xoogan ayaa ka dhijira Raila Odinga iyo sidoo kale William Ruto oo isku haya mid kale inuu noqdo madaxweynaha dalkaasi Kenya wararka rasmiga saaka naga soo gaaraya dalka Kenya ayaa si rasmi ah u sheegaya in qaybo kamid ah qaybaha lagu codbixinayay markaa dadka cod ka dhibanaya in gacan ka hadal xoogan uu ka dhashay isla markaa halkaas isku khilaafeen qaar kamid ah guddiga doorashooyinka loo xilsaaray dalkaasi Kenya Raila Odinga iyo sidoo kale William Ruto ayaa xilligan aad moodaa inay istabarhayaan isla markaana ay istabahayaan wali aan si rasmi ah xilligan la sheegin qof ku galay kaalinta koobaad inuu ku noqdo madaxweynaha wadankaasi Kenya codadkii ugu tira badnaa ee lahaatan si rasmi ah aan loo shaacin cidda noqonaysa madaxweynaha dalka Kenya afarta sano ee soo socota William Ruto oo asna kaalinta ku jira ayaa asna la filayaa in uu isagu natiijadiisa noqoto inuu noqdo madaxweynaha wadankaasi walow aysan xilligan codka ugu horeeyay halkaas gacanta uu ku dhigay madaxweynaha hogaamiyaha mucaaradka ee Kenya Raila Odinga oo isaguna ugu horeeya tartanka codbixinta waxaana jirta in wali aan si rasmi ah goobaha codbixinta looga shaacin cidda noqonaysa madaxweynaha dalka Kenya isla markaana muddo ay qaadatay in si rasmi ah codadka loo tiriyo qayb kamid ah mucaaradka dalka Kenya ayaa si rasmi ah warbaahinta ula hadlay waxayna ka hadleen sida ay xaaladda khilaafka iyo sidoo kale soo kala galay Raila Odinga iyo sidoo kale William Ruto inuu yahay mid xilligan aan loo baahneen walow ay dalku u galay doorasho isla markaa goobaha codbixinta qaarkood lagu arkay in qaar kamid ah xuduudda doorashooyinka ee dalka Kenya ay gacan ka hadal halkaasi ka sameeyeen isla markaana ay dagaalo xooggan halkaasi ku dhaxmaray waxaana jirta in William Ruto iyo sidoo kale Raila Odinga oo ilaa haatan istaba socdaan isla markaana aan si rasmi ah loo cadeyn karin natiijada hordhaca iyo sidoo kale qof ku guuleystay inuu noqdo madaxweynaha dalka Kenya shacabka ayaa si rasmi ah ugu diray goobaha codbixinta iyadoo la doonaya inay soo doortaan madaxweynaha hogaamiye doorashada soo socota dalka Kenya walow ay madaxweynaha hore dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo xilka ka digi doono maadaama laba mar uu noqday madaxweynaha wadankaasi Kenya William Ruto iyo sidoo kale Raila Odinga ayaa si rasmi ah xilligan isku haya loolalkii ugu xoogganaana dhanka doorashada ku jira walow aysan jirin cid rasmiga xilligan la shaaciyay inuu noqdo madaxweynaha wadankaasi Kenya